waxaa goordhoweyd magaalada muqdisho ku aqalgalay oo xafladda meherkoodu ka dhacay boqoradda istaylka oo ku magac dheer mariya abshir iyo haykal muuse lamanahan oo muddooyinkii dambe xiriir jacayl uu ka dhexeeyey ayaa saacadihii ugu dambeeyey social media aada loogu faafinayay hambalyada iyo sidoo kale tahaniyada arooskooda oo maanta ay ku beegneed maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 6 bisha 6 ee juun sanada 2022 ayaa ku asteysneed maalin iyaga farxad u ah sida la badoogsoon yahay boqorada istaylka iyo haykal waa dhalinyaro soomaaliyeed oo aada loogu taxan yahay marka ay timaado muuqaalada social mediaha lagu baahiyo ee madadaalada inta badanna dadku waxa ay sheegaan in uu xidhiir jacayl oo aada u baaxad weyn oo soo jiray uu ka dhexeeyey kaasoo ay isku dayeen in ay kusoo bandhigaan social mediaha laakiinse uu jiray tuhun ah in haasawahooda uu ahaa mid iyaga u qarsoona si kastaba waxaa saacadihii ugu dambeeyey aada u qabsanaya social mediaha fariimaha hambalyada ee loo dirayo boqorada istaylka iyo saygeeda mustaqbalka haykal muuse kuwa oo dadka badankii ay hawada u marinayaan tahniyado iyo ducooyin kala duwan halka ay jiraan dad iyagu ka falcelinaya dhaqaalaha lagu meheriyey gabadhaasi boqorada istaylka oo 100 garaam ee dahabka oo dadka qaar intooda badan ay waxay iska weydiinayeen sababta ay ku dhacday in meherka gabdhaha Soomaaliyeed waayada dambe uu noqdo meherka ugu qaalisan marka loo fiiriyo bulshooyinka kale ee caalamka dad badan ayaa baraha bulshada aada ugu faafinaya dadkuna waxa ay intooda badan aada calaamad su-aal u saarayeen dhaqaalahaasi 100 garaam ee dahabka oo ay dadku lahayeen waa dhaqaale aada u badan marka ay timaado meherka waayadan dambe siiba qarashka bulshada Soomaaliyeed arooska ay ku bixiyaan haddaba ma ahan markii ugu horeysay oo laba qofood oo social media caanka ah oo is aroosaya dhaqaalahooda uu dadka aada u soo jiito waxaa horey u midoobay qoysas badan isla markaana u yagleelay aroos qaar ka mid a dadka baraha bulshada intooda badan adeegsado haddaba marka ay timaado dadka caanka ka ah social media horey waxaa u midoobay isla markaana aqal yagleelay nuurdiin kl iyo atrisha baadiyo kuwaasi oo labaduba ka mid ahaa dad aada looga yaqaano social mediaha misna is aroosay amba dhistay qoys inkastoo dadka caanka ah social mediaha mar allaala marka la weydiiyo dooqooda iyo gayaan xulashadooda iyo marka ay timaado guur in ay guursan lahaayeen qof sidoodoo kale caanka ah barta dadweynaha ay ku xidhan yihiin youtube-ka ama social media qaybihiisa kale intooda badan waa ay ka biyadiidaan haddana haykal iyo boqorada istaylka labaduba waa dhalinyar aada loogala socdo baraha bulshada haddii uu noqon lahaa tiktok-ga ama youtube-ka haddana waxaan u rajeynaynaa in ay noqdaan kuwii isu waara oo alla dhexdooda uu ku abuura jacayl aan dhammaan waayadan dambe waxaa aada kor ugu kacay dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraha bulshada adeegsato kuwaasoo intooda badan ka dhabaya riyooyinkooda amaba hiigsiga noloshooda marka ay timaado dhanka guurka hambalyadeena arooska oo halkan aan uga dirayno lamaanahan imika midoobay noloshana ku midoobay waxaan leenahay mataanaha midoobay maxabada jacaylka iyo milgihiisa gaaro mahad eebbe weeye marxabee iyo caashaqa minankiina mowluhu mafaatixda khayrkiyo masaabix ifaysiyo maryan iyo mulaaxiyo muscab iyo ma dhaafaan maslax eebbe idin siiye oo macallimiin dhala idinkuna mashxarado maasha allah iyo marxabeenta raaciya boqorada istaylka iyo sidoo kale saygeeda cusub haykal ayaa muddooyinka ugu dambeeyey aada diiradda u saarnaa marka ay timaado hadalheyn badan oo hareysay noloshooda muddooyinka ugu dambeeyey waxaa jirtay xiliyo dhowr ah oo boqorada istaylka si aada dadku ay ugu farfiiqayeen islamarkaana ay ugu dhaleeceynayeen in ay anshaxumo u horseedayso da-yarta Soomaaliyeed maadaama nin ajnabi ah oo qabin ay la kulantay amaba ay u kicitintay si ay ula kulanto iyadoo gaartay magaalada Hargeysa halkaasi oo asal ahaan uu kasoo jeedo ninkani imika lagu magacaabo haykal ayaa dhanka kale waxa uu kasoo socdaalay Hargeysa si uu u tago magaalada Muqdisho isla markaana uu la kulmo waqtina ula qaato boqorada istaylka hase yeeshee haddana waxa ay meesha ka saareen in uu jiray xiriir ama isu soo dhawaasho arrimo kale ku lamaanan ama ciyaal suuqnimo sida dadka baraha bulshada qaar intooda badan ay ka dhawaajinayeen ama hadalka u dhigayeen boqorada istaylka ayaa marar badan waxa ay beenisay in arrimo aada u falxun uu kula dhaqaaqay ama kula kacay ninkani haykal lagu magacaabo iyada oo dadkuna u muujisay in haykal uu yahay qof xiriir
hoose uu kala dhexeeya iyada, islamarkaana xiriirkooda uu ku koobnaa xiliyada qaar walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo sidoo kale is-afgarad iyo markay timaado wada shaqayn dhanka social mediaha. hase yeeshee haddana iminka waxa ay doorbideen in ay ka dhabeeyaan tuhunka iyo shakiga ummadda ay ka qabtay markay timaado isu soo dhawaashahoodii, iyo marka la eego dhanka waqtiyadii badnaa iyagu ay aada waqti u wada qaadanayeen, taasi oo ugu dambeynba iminka noqotay in meherkooda maanta u dhaco amaba ay iscalfadaan oo iyagu ay isku dooq noqdaan, isla markaana nolosha ay wadaagaan. dad badan oo baraha bulshada aada u adeegsado ayaa aada u dhaleeceyn jiray lamaanahan, isla markaana aada intooda badan baraha bulshada siyaabo kala duwan dhaliil ugu marin jiray. hase yeeshee haddana boqoradda istaalka ayaa marar badan waxa ay ku andacootay in haykal uusan ahayn qof ciyaal suuq ah, amaba uu yahay qof xiriir saaxiibtinimo uu kala dhexeeyo, oo ay yihiin laba qof oo iyagu isku dhow, isla markaana macriifo ah, xitaa dhan marka loo fiiriyo wada shaqeyn ay ka dhexaysay, taasina ay sababtay inay isku yimaadaan, isla mar ahaantana dhowr siyaabood iyagu ay ku kulmaan ama la arko iyaga oo kulmaya. boqoradda istaalka iyo sidoo kale haykal muuse iminka waa dad iminka nolosha ku midoobay, isla markaana isguursaday. waxaana inagu leenahay noqda kuwii isku waara nolosha inteeda markaasi dhimanna wada qaata. haddaba sidoo kale idinka waxaa idinka codsanaynaa in qaybta communitiga duca hawada ugu marisaan lamaanahan, isla markaana tahniyadihiina, fariimihiina, dhambaalada farxadda iyo hambalyada aada halkaasi noogu soo gudbisaan. badan oo baraha bulshada adeegsada ayaa aada ugu soo hambaliyeeyey guurka lamaanahan Soomaaliyeed, maadaama wadiiqadii saxda ahayd ee islaamnimada ay isu arooseen ayna yihiin laba dhalinyaro oo isjacayl iyo muxibo iyo isfahan gudbinaya marka la eego labada qadiyadood ee labada gobol oo ay kala matalaan waqooyi iyo sidoo kale koonfur. dad badan ayaa aaminsan in haykal iyo boqoradda istaalka ay isku duubnay iyo jacayl ay ku dabaali doonaan waqooyi iyo sidoo kale koonfur, amaba xiriirkooda ama jacaylkooda iyo guurkooda ay ka dhigan tahay isfahanka iyo sidoo kale wanaagga iyo ixtiraamka ay isu muujinayaan labada amaba beelaha ama qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeed ee iyagu intooda badan ku kala nool gobollada kala gesan ee dalka. inkastoo aynu ognahay Somaliland ay ictiraaf aada u doondoonayso ayna wado geedi socodkii ay uga guulahayd Soomaaliya, hase ahaatee maadaama iminka haykal oo reer waqooyi ka soo jeeda uu guursaday ama u tallaabay koonfurta Soomaaliya, isla markaana uu guursaday boqoradda istaalka oo iyaduna reer koonfureeda, tani ay ka dhigan tahay sida labada jaaliyadood ama Soomaalida inteeda badan gobol weliba ay ka soo jeedo ay isugu baahan yihiin, isla markaana ay isugu duuban yihiin isfahan iyo wanaag iyo nabad iyo sidoo kale xasilooni dhexdooda.